السلام عليكم daawadayaal habeen wanaagsan qodobada ugu waaweyn ee aad barnaamijka ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya saacadan aan idin la hadlayo madaxtooyada Soomaaliya iyo dhinaca xubnaha mucaaradkuba waxay si weyn ugu mashquulsan yihiin in kulanka bari ee baarlamaanka Soomaaliya la baajiyo aadan madooba dhinaciisa hardan culus ayuu wadaa James Swan iyo beesha caalamkuna waxay ku baaqayaan inuusan gudoomiyaha golaha shacabka hal dhinac u xaglin maxay uga hadleen kulankii dhaxmaray aadan madooba iyo James Swan barnaamijkan ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbinayaa iyo wararkii ugu dambeeyay imika maxaa cusub soo dhawaada akhyaaray marka hore se barnaamijka oo faahfaahsan inta aanan u guda gelin waxaan idinka codsanayaa saaxiibayaal muuqaalkan haduu idin soo gaaro dhammaantiin inaad meel dheer inoo gaarsidaan halkaana aad ku soo biirtaan si aysan idin dhaafin wararka iyo barnaamijyada degdega ah ee aynu daawadayaasheena halkan kula wadaagno haddaba soo dhawaada saacadan aan idin la hadlayo baarlamaanka labadiisa gole ee ku sugan magaalada Muqdisho mid kasta oo kamid ah waa mashquul iyadoo xildhibaanada lagu cadaadinayo ama dabcan lagu adkaynayo inay biri baarlamaanka soo wada xaadiraan isla markaana kooramku uu noqdo mid buuxsama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa raba inuu mucaaradka birida dhulka ugu dhufto iyagoo qayl dhaaminayana uu dastuurka ansixiyo Puntland iyo Jubbaland ayaa arintan horey uga soo horjeestay iyaga oo meenka ka cuskaday kana soo horjeestay dawladda talaabooyinka ay qaadayso dhinaca kale dhaqdhaqaaq xoogan ayaa socda wararkaas oo dhan aan ku koobaynaa marka muuqaalka akhyaaray meel dheer gaarsiiya fikirkiina iyo aragtideeda dawladda ma uga guuleysan doontaa arinta dastuurka xubnaha mucaaradka haddii arintan ay dhacdo oo ay dawladdu guuleysato Axmed Madoobe iyo Saciidani xildhibaanada ay markaa la aadeen magaalooyinkooda maxay ka dhigan tahay inay xildhibaanadaas mataladoodii tahay bal fikirkaaga iyo aragtidaada faalada inoogu reeb muuqaalkana meel dheer hala gaarsiiya saaxiibayaal marxalad cusub iyo waji cusub oo siyaasadeed ayuu dalku galay dawladda federaalka ah iyo mucaaradka ayaana mid kasta tijaabinaya bal kalsooni intee la eg ayuu baarlamaanku ku qabaa yaas galaangal iyo saameyn ku dhaxlay dhaqdhaqaaqu imika waa mid aad u culus iyadoo sidoo kale xubnaha mucaaradka ee ku sugan hotelka The Airport oo ugu horeeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay iyaguna halkaasi ka wadaan kulamo xoogan Sheekh Shariif ayaa hotelka The Airport imikadan kula kulmay xildhibaanada ka soo jeeda dhinaca maamulka Puntland iyadoo kulamo xasaasi ah uu la qaatay xildhibaanadaas waxay wararku tilmaamayaan in madaxweyne Sheekh Shariif iyo xildhibaanadii kulmay ay isku dhaarsadeen in dastuurka la difaaco ayna ka soo horjeestaan sida ay dawladdu wax u wado dhinaca kalena gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa isaguna ku jira galaangal culus iyadoo xildhibaanada lagu qancinayo biri inay kulanka soo wada xaadiraan gacantana u taagan dastuurka halkaas ayay maraysaa siyaasadii Soomaaliya iyadoo dhinaca kale mucaaradka Jubbaland iyo Puntland ay iyaguna markaa xildhibaanadoodii ku adkaynayaan inaysan biri baarlamaanka tagin isla markaana aysan ansixinin madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan hadlay ayaa sheegay inaysan waxba ka soo bixin dastuurkan isla markaana dawladdu ugu baaqayo inaysan dhaqaalaha iyo qarashka isaga qasaarin khudbadii uu dhawaan jeediyay madaxweyne Saciid Dani hadaladii ugu muhiimsanaa waa kuwan بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم maanta oo bishu ay tahay kowda bisha saddexaad waxaa runtii halka rabnaa inaan ku qabanno war kooban oo ku saabsan xaaladii maanta ka dhacday magaalada Garowe sida la wada ogsoon yahay diyaarad ka timid magaalada Muqdisho oo ku soo socotay magaalada Garowe oo ay saarnaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo rakaab caadi ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ah iyo dawladda Puntland oo u badnaa xildhibaanada labada aqal ee ku matala Puntland dawladda Soomaaliya ayaa waxa laga celiyay hawada iyada oo maraysa markii uu soo dhawaatay magaalada Garowe waa markii labaad oo dawladda federaalku ay samayso arintan oo kale sidoo kale kowdii bishii labaad ayaa wafdi Puntland ay ciidamada ilaalada madaxtooyada oo u socday shirki ka dhacayay magaalada Muqdisho iyadana laga celiyay markay caga dhigan lahayd magaalada Muqdisho runtii arrimahaasi waa arrimo dhaawacaya dawladnimada Soomaaliya waa xadgudub dastuuriya oo muwaadinka Soomaaliyeed lagu waxyeeleynaya sharaftiisa karaamadiisa iyo noloshiisa waa xadgudub bini'aadanimo waa dhibaato
hadday sii socoto keeni karta in la aamini waayo nidaamka duulimaadyada ee dalka Soomaaliya. arrimahaas inay ka dhacaan mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo xilal sare ka haya dalka runtii waa arrin aan marna la aqbali karin, suuragalna ahayn in la aqbalo. waxaan rabaa inaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto u sheego mowqifka Puntland arrintaa ku aadan ee ah in lagu xadgudbay muwaadiniin Soomaaliyeed si guud iyo si gaar ah muwaadiniin ku soo socotay deegaanada Puntland. sidoo kaleeto muctamariin ay ahayd diyaaraddaas inay ka qaado magaalada Garowe oo gobollo kala duwan ee Soomaaliya iyo Puntlandba ka yimid ay halkaas ku gaareen waxyeello qorshahoodii lagu burburiyey, dhibaato aysan ku talagelin halkaas loogu geystay. waxaan u mari doonaa hay-adaha sharciga ah arrimahaas wixii ka dhashay, waan u gudbin doonaa hadday tahay hay-adaha dowladnimada khuseeyo iyo hadday tahay maxkamadaha ay khuseyso ku xadgudubka nafta bini'aadamka. dadkaas runtii waxa gaaray waa wax aan suuragal ahayn in la aqbalo. Puntland waxay mar walba u taagan tahay dhismo dowlad Soomaaliyeed oo ku salaysan sharci, ku salaysan ixtiraam, eegaysa xuquuqda aadanaha iyo kan dadkeeda Soomaaliyeed. xadgudubyadaas soo noqnoqday waxay abuuri karaan khaladaad in laga soo waaqsaday adagta. waxaan halka rabaa inaan uga digo ficilada noocaasa oo ah amarro ka soo baxa madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaan si toos uga soo baxa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. xadgudubkaas waa xadgudub u baahan in laga xisaabtamo, looga xisaabtamo hay-adaha sharciga, loogana xisaabtamo siyaabaha kale ee Soomaalidu ay uga naqsato. kala aragtiduwanaanta siyaasadeed iyo in la xalliyo arrimaha guud ee Soomaaliya ma keenayso in nafta bini'aadanka lagu xadgudbo oo weliba diyaarado si sharciya lagu socdo inay tanoo kala dhacdo. waa wax aan la aqbali karin. Puntland sida hadda ay ku cad oo cid walba og tahay 18 maalmood bay waxaan u joogay anigii waftigii la socday magaalada Muqdisho arrimaha ku saabsan xal u helidda arrimaha cakarin ee Soomaaliya. arrimahaas meeshii ay ku gabagaboobeen cid walba u egyihiin. golaha mustaqbalka iyo annaguba mawaaqif cadcad oo ku aadan khilaafka arrintaa ku saabsan iyo sida loo xallin karo ayaan marar badan ka soo saarnay warmutriyeedyo la hadlaya bulshada Soomaaliyeed. tan maanta aan ka hadlayno waxa weeye ku xadgudubka lagu xadgudbay dadka reer Puntland iyo garoomada Puntland dadka ka safraya ama u safraya. waxaan rabnaa inaan ogeysiino dhammaan dadka arrimaha Soomaaliya ay khuseyso, hay-adaha caalamiga ay dowladnimada khuseeyaan, maxkamadaha ay khuseeyaan hadday tahay kuwa Soomaaliya, kuwa bariga Afrika iyo kuwa caalamiga intaba u darban wax ka qabashada dambiyada iyo falal dambiyeedka ummadaha dhexdooda ka dhaca. runtii waxaan isleeyahay arrintaas waa arrin u baahan in lagu baraarugo, sharciguna uusan noqon sharci qof iska leeyahay siduu doonan uu ka yeelo. waxaan aad uga xumahay inay dowladdii Soomaaliya isku bedeshay wareegto uu qof siduu uu doono uu ka yeelo. taasi waxay halis ku noqon doontaa dhismaha dowladda Soomaaliyeed ee sharciga laga filaa inay ku dhisnaato. waxaa intaas loo samaynayaa oo markii horena loo diiday inay tagaan wafdiga xamar, haddana loo diiday xildhibaanada u soo socday deegaan doorashadooda inay la tashi la sameeyaan. waxaa intaa loo samaynayaa inay dowladda federaalka ah ay ku foogan tahay inay samayso, inay afduubto sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada. ficilka maanta dhacay waa afduub loo geystay dadkii rakaabka ahaa ee isugu jiray shacabka iyo mas'uuliyiinta dowladda federaalka.
dadkaa ku afduuban ee laga afduubay maanta inay garowe soo aadaan ee hadda ku xayiran airbortka magaalada muqdisho waxaan ka codsanaynaa dadka waxgaradka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeed ee weli damiirku ku haray inay dadkaa xorriyaddooda siiyaan una ogolaadaan deegaanadooda inay yimaadaan iyaga oo aanan la jujuubin laguna xadgudbin sharci u masaamaxaya mid islaam iyo mid kaleetoo la qortayba in qof xorriyadda laga qaado oo la jujuubo meelay ku taalla male cid la celin karaa ma jirto haddii ay dhacday in dadka la afduubo dee arrintaas siyaabo kaleeta ayaa looga jawaabi doonaa haddii la xidno dadkan dad bay matalaan dad bay mas-uuliyiin u yihiin dad bay ka dhasheen xuquuq bay leeyihiin xasaanad bay leeyihiin bulshada lagu xadgudbaya arrintaas waa in laga bixiyaa jawaab degdega waxaan rajaynaynaa marka aan dacwadaha soo gudbinno magdhowda iyo khasaarihii halkaa gaaray waxaan rabnaa iyadana xilligeeda iyo dacwadaheeda inaan gudbin doono arrinta dhacday si adag baan u cambaaraynaynaa sidaasna ma aha si dowladnimo soomaaliya lagu hogaamin karo madaxda hadda filla soomaaliya joogtana uma qallanto in ay noqoto mas-uuliyiin soomaaliyeed oo muwaadinka karaamadiisa sharaftiisa dhowraya xadgudubyadan soo batay waan ka xumahay inay soo noqnoqdaan waxaanse si kore oo cad oo dheer u sheegaynaa waa xadgudub aan marna la qaadan karin waana xadgudub aanan wax ay u goynayso oo siyaasadeed aysan jirin bal dadka soomaaliyeed ay kasii fogeynayso horaa looga aamusay xadgudubyada uu ka sameeyey magaalada muqdisho iyo deegaanada kaleeta ee soomaaliya ilaa iyo hadda garoomaha xiran oo ay ka mid yihiin garoonka doolow oo xadgudubkaas uu weli taagan yahay oo dadka halkaa degan ay suuragal u ahayn inay deegaanada kale aadaan iyagoo dhulkana aan mari karin sababo la xiriira ammaanka hawadiina laga xiray in dowladnimada soomaaliya markii muqdisho la geeyey oo caasimadii la geeyey oo filla soomaaliya la geeyey ay noqoto wax dad gaara lagu beegsado wax la aqbali kara ma aha waxaan rajaynayaa dhammaan inta caqliga leh oo waxgaradka ah oo dadka soomaaliyeed heerarkooda kala duwan arrimaha noocana inay u istaagaan waxaan kaloo fariinteeda u dirayaa hay-adaha caalamiga ee maamula arrimaha duulimaadyada rayidka ah iyo garoomada iyagana in dib loo fiiriyo nidaamka ay u shaqeeyaan badqabka dadka muwaadiniinta ah in qof muwaadina oo la siiyey tigidh oo diyaarad raacay oo ogolaansho la siiyey oo hawada maraya oo markii ay degi lahayd soo noqon la yidhaahdo arrintaas waa xadgudub runtii aan marna la qaadan karin oo mar aan dhicin oo laba mar dhacday oo meelo badan ka dhacday arrintaas si koraan u sheegaynaa waxaan muujinaynaa dareenkeenna waxaan ka xunnahay dhibaatada ku dhacday dadkii soomaaliyeed ee diyaaraddaas saarnaa ee isugu jiray muwaadiniinta caadiga ah ee rakaabka iyo mas-uuliyiinta saarnaa ilaahay waa wax dila laakiin waxa maanta loo geystay waa dil qorshaysan waxaan u rajaynaynaa inay badqab ugu yimaadaan deegaanadoodii iyo dadkoodii dadkii facalkaa geystana waa lala xisaabtami doonaa haddii ilaahay idinka dhigo waxaan kaloo rabaa inaan hadalkayga ku soo ururiyo codsiga dadka soomaaliyeed aan u gudbinayo weliba dadka hadda ku sugan magaalada muqdisho oo dadkaas ku xayiran yihiin oo ku xaniban yihiin in dadkaas sida degdeg ah loo soo siiyo xorriyaddooda oo u yimaadaan deegaanadooda iyo dadkooda sidoo kaleeto arrimaha socda ee ku saabsan wax ka beddelka dastuurka oo loo maraayo waddo kasta oo loo dilaayo dad oo loo afduubayo dad oo loo dibindaabiyoonayo degaano iyo dhul waxaa ogaataan in ay keeni karto mushkilad xalkeedu muddo dheer lagu qaadato dhibaatadii ka dhacday 1991 ayaan weli la xabinaynaa 35 sano kadib oo dhacday waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay arrintaas si wada jir ah uga hortagaan oo meel ay ka wada istaagaan oo ilaaliyaan midnimada iyo wada jirka dadka Soomaaliyeed iyo ku dhaqanka sharciga dastuurku waa heshiis bulsho oo in loo dhamaado u baahan mowqifka Puntland iyo mowqifka golaha mustaqbalku waa cadiya madaxweyne xasan sheekh iyo inta la socota dastuur si gaar ah uma bedelan karaan si gaar ah uma qoran karaan meel ay la tagayaan male waqtigaas ka dhuminin
dhaqaalaha badan ku baayacaysid ha iska burburinin dalkan wax badan buu ugu baahan yahay amnigiisa iyo noloshiisa in looga shaqeeyo dadka muwaadiniinta ah xorriyadooda si dalkan wixii lagu doortay ka shaqee muddada yar ee ku hartay dal nabada in ha lagugu yimaado ha ku talagelin inay marlabaad gacantaada filla Soomaaliya inay burburto ha ku talagelin oo ha u celin sidii ahaan jirtay dalka Soomaaliya waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga dalkan dadkiisa waxaa la rabaa inay baraarugaan oo inta aysan meel xun gaarin ay isu kaashadaan sidii dalka loo samata bixin lahaa wixii maanta dhacay wax la aqbali kara maaha wax laga aamusi karana maaha fariintayda ugu dambaysa waxaan u darayaa dadka reer Puntland inay ilaaliyaan midnimadooda wadajirkooda dhowraan ilaashadaan dalkooda iyo dadkooda ilaaliyaan shuruucda hadhow lagu dhaqi doono iyo mowqifka ay ka leeyihiin waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan hadday yihiin kuwa magaalada Muqdisho jooga ee dowladda federaal ka tirsan iyo hadday yihiin kuwa Puntland jooga ee shacabka iyo mas'uuliyiinta iyo hadday yihiin kuwa dibadda joogaba arrintan mowqif midaysan inay ka qaataan geedi socodka dalka lagu dhisaayana kaalinta ay ku leeyihiin ay ka qayb qaataan inaysan noqon jajuub iyo handadaad iyo afduub mowqifkooda siyaasiga ah iyo mustaqbalka jiilkooda mustaqbalkiisa yaynan u baabi'in Puntland dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo mas'uuliyiin ahaanba waxaan u taagannahay ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo dastuurka federaalka ee 2012 waxaan si adag u adkeynaynaa nabadgelyada iyo kala dambeynta dowladda Puntland waxaana si aan kala har lahayn u raadin doonaa Soomaali midaysan oo mid ah oo meel u wada jeeda oo dastuur iyo sharci ay isku waafaqsan tahay ku shaqeysa fariintaas intaas aan ugu gudbayaa waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaah haddaba berri ayay dadka Soomaaliyeed oo dhan indhaha ku hayaan baarlamaanka xildhibaanada ayaana loo diray fariintii ugu dambeysay ee ogeysiiska baarlamaanka wixii warana ee soo kordhana daawadayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena kale ee soo socda ayaan idin kula wadaagayaa akhyaaray barnaamijkeenina intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo inta aynu barnaamijka mid lamida ku kulmaynana waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh